halkani waa taliska qaybta bilayska ee gobolka Sool. Telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa saaka subaxnimadii hore booqday taliska qaybta booliska ee gobolka Sool, iyadoo halkaasi aan kula kulannay gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdiqani Maxamuud Jiire iyo taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Sool Korneyl Axmed Cabdilaahi Cabdi. ugu horeyntii gudoomiyaha gobolka Sool iyo taliyaha qaybta bilayska ayaa si wada jir uga warbixiyay xaaladda nabadgelyo ku naaloonayo gobolka Sool. sidoo kale taliyaha qaybta bilayska gobolka Sool Axmed Cabdilaahi Cabdi ayaa ka warbixiyay khamri tiro badan oo laba habeen ka hor ciidamada bilayska ee gobolka Sool ay ka soo qabteen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Sool. khamrigaasi tiro badan iyo gaadhigii siday iyo waliba eedeysanayaal isla markaana gacanta lagu soo dhigay. guud ahaan saad ogtiin gobolka Sool wuxuu ku tallaabsaday runtii horumar iyo nabad. waxaa la yiraahdaa sanadka 2019 waxa uu ku astaysan yahay sanadka nabadda iyo horumarka. waxaan sida aad arkayseen waxaa la soo qabqabtay oo aafo badan ku hayay oo dhibaato badan ku hayay deegaankeena bahalka khamriga la yiraahdo. ciidanka bilayska oo taliyo hogaaminayo waa uga mahadcelinaya runtii inay bahalkaas khamriga la yiraahdo inay la dagaalamaan oo aafo badan oo dhibaato badan ku hayay. laascanood imika sidii bahalkaas loola dagaalamay waxa ka yaraaday kow in xabada iska dhacaan meesha way ka baxeen. wax ilaahay loogu mahadnaqo meel wanaagsan maraysa halkaana waxa lagu gaadhay wada shaqayn iyo sharciga iyo nidaamka la ilaaliyo la fuliyo kaliya waxaan tabaynaa oo naga dhiman wasaaradaha waxaan ku codsanayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa shilil meel dusha lama dhaye wasaaraduhu inay shaqeeyaan wasaaradaha dawladdu inay shaqeeyaan oo annagu wasaaraddiis cadaysa wasaaradaha kale nooga duwanta way dadaalayaan oo habeen iyo maalinba way soconayaan. taasina waxay keentay magaaladan khamri baa haystay iyo qori rumay oo 40 kilomitir u jirta ka adiga duubteen baan habeen hore ka soo qabtay 40 kilomitir ilaa saanad u jirta kulli waana waajibka iyagana saaran weey waana waajib diiniya oo anagoo fulina nasaaran inaan meel ka soo galo ka daba galo. marka fayskii hore magaalada gudaheeda ahayd uu naga dhamaaday faystuug waa in banaanka laga raadiyo dhulka uu marayo iyo wadooyinka loo baxo. taasuna way bilaabatay ilaahay idinka way dhamaanaysaa. qorigiina waa naga yaraaday ani qaybta iyo gobolka maayarka iyo aaga bari ee ciidamada militariga oo iskaashanaya markaanu talo gaadhnay arinta ilaahay baa noo fududeeyay. geesta kale maayarka degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed Tarwale ayaa ka hadlay bilicda iyo horumarka ay ku tallaabsatay degmada Laascanood. liibaanna si gaar ah ugu mahadcelinayo hadeer TV-ga qaranka ku soo biiray. waxa mar labaad farxad noo ah inay magaalada Laascanood tahay magaalooyinkii waaweynaa ee Soomaaliland eeda magaalada Quure ilaa hadeer master plan-ku iyo toon plan-kii labadaba ay ka fuleen guul gaar inoo tahay haddaanu golaha deegaanka nahayo maamulka dowladda hoose Laascanoodba waxaan hiigsanaynaa Laascanood horumarsan Laascanood bilicsan Laascanood magaalooyinka kale Soomaaliland dhaafta iyo magaalooyinka kale geeska ku yaala degmadaba. ugu dambeyntiina gobolka Sool ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa uu ku naaloonayaa nabadgelyo buuxdo taasoo ay sababeen maamulka gobolka oo si wada jir uga wada shaqeeyay sugidda ammaanka iyo xasiloonida gobolkan. Walibaan Axmed Ciise Libaan Qaran iyo Samatar Faarax Meegaag warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascanood xarunta gobolka Sool.